عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa walaalayaal inaan caddeeyo faahfaahiyo su'aalo iga soo gaaraya dadka igu xiran. Su'aashan waxay ka timid nin la yiraahdo Cali Mahdi. Cali, su'aashii aad i weydiisay baan doonayaa in aan adna kaaga jawaabo ummadana u bayaaniyo. Cali wuxuu leeyahay waa maxay micnaha boosterka ee la iska rabo muxuu yahay? Dooskii koowaad iyo dooskii labaad ee talaalkii waan qaatay, marka muxuu yahay boosterkan? waa su'aasha uu i weydiiyey. Cali oo ah nin well connected ah sidaan ka arkayo emailkiisa wuxuu ii soo diray xiriir inuu subscription ama uu si toos ah uga helo stateka uu degan yahay Minnesota, governorka iyo maxaa la dhihi jiray iyo warbixintaas joogtada ee alert systemka ah ayaa loo soo diray, taasoo loogu sheegayo in lasaga baahan yahay booster shots inay available u yihiin dadka markaasi eligible ku ah. Marka su'aashu xaggaas ka timid, emailkii iyo akhbaartii oo idilna wuu ila soo wadaagay. Runtii waa waxyaalaha lasaga baahan yahay qofka. Haddii su'aal markaa qabtid backgroundka su'aashaasi iyo meesha ka imaanayso, runtii qofka kaaga jawaabaya haddii aad la wadaagtid way kasii fiican tahay. Arrintaasina waxay ahayd maxaa la dhihi jiray governorka oo briefingkiisii ummadda la wadaagay. Marka yes, calowsan kugu sheegaba khayr Allah ku siiya, dose 1 iyo dose 2 baad qaadatay, ama Pfizer ama Moderna midkood baad qaadatay. Waxaa dhacday dadku markay talaalka qaateen ee loogu magac daray inay fully vaccinated yihiin, dad qaybaha ka mid ah bulshada, dadka itaalka daran, duqeyda da'dooda 65 ka sarreyso, iyo dadka caafimaadkooda uu liito ee immunocompromised loo yaqaan, iyo dadka bahda caafimaadka ah ee dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka iyo bahda caafimaadka isku dare ee cisbitaalada ka shaqeeya, maadaama ay dadkaasi ay yihiin dadka ugu dhow ee ugu dhibka dhow in uu ku dhaco cudurkaasi oo loo yaqaano high risk groups, iyo dad waxaa jira iyana underlying conditions qaba. Dadka noocaas oo kale ah ayaa waxaa loo jideeyey, loo ogolaaday in ay qaataan doos dheeri ah. Sababta dooska dheeriga keentana waxay tahay haddee dadkii ugu horreeyay ee talaalkan qaatay waa dadka duqeyda ah ee 65 sano ka sarreeya, dadka ku nool maxaa la dhihi jiray meelaha loo yaqaano long term care-ka ama duqeyda meelaha lagu xanaanayo caafimaad iyo lagu siiyo baxnaano. Dadkaasi waa dadkii ugu horreeyay talaalka qaatay. Dhaqaatiirtu waa dadkii ugu horreeyay talaalka qaatay. Bahda caafimaadkan ka hadlaya gabi ahaan haddee waxay qaateen December iyo January sanadkan. Markay ka soo wareegatay 7 bilood iyo ka badan, waxaa la arkay difaacoodii hoos u soo dhacaya, nusqaan ku imaanaysa awooddii gantaaladu ay jirkooda u sameeyo. sidaa darteed baa waxaa la yiri si loo difaaco gantaaladu ay u ahaadaan mar kastaba kuwa sarreeya in la siiyo another shot. sidaas weeyaan boosterka lagu sheegayo waa xoojin, boosterka lagu sheegayo waa kor u qaadis, difaaci oo hoos u dhacaya oo kor loo qaadayo la xoojinayo. yaa la siinayaa marka? dadka la siinayo calow waxa weeyaan dadka da'doodu ay 65 sano iyo ka weyn tahay. waad ii sheegtay adigu kuma jirtid gartay. dadka qaatay talaalka 6 bil ugu yaraan ka hor, dooskii labaad qaatay 6 bil muddo hadda laga joogo iyo ka badan, dadkii qaatay bilihii maxaan ku raahdaa March iyo April hadda eligible bay u yihiin. dadka da'dooda 18 sano ay ka weyn tahay ee ku nool loo yaqaano long term care setting, meel dadka lagu xanaanayo long term care setting ah, ama dadka da'dooda 18 sano ay ka weyn tahay, kuwaasoo leh xaalad underlying medical conditions ah, ama cudurro waxa u dheer cancer iyo cudurro kale waxay leeyihiin oo underlying medical conditions oo sokor xitaa noqotaya, neef noqotaya, cudurro noocaas oo kala qaba. maxaa yeelay dadkaasina waxa weeye dadka aad ugu nugul cudurkan ee la doonayo in laga badbaadiyo cudurkan, oo aan la doonin in dib dambe ay u dhacdo wixii bilowga markuu ahaa cudurkan uu dadka ku sameeyey. waxaa kaloo iyana eligible u ah ee hadda laga doonayaa inay qaataan dooskan kale ee boosterka ah, dadka da'dooda 18 sano ka weyn tahay ee
ka shaqeeya ama ku nool high risk groups waxa loo yaqaano waa dadka ka shaqeeya goobaha caafimaadka waa qofka jiifa ama dadka maxaan ku raahdaa ilaahay waa ku roon yahay maxaan ku raahdaa high risk groups ka dadkaas way badan yihiin innaga oo kale waxaan u maleeyaa bulshadeena waxa aad aan u maleynayaa in ay eligible u yihiin dadka grocery shop ka shaqeeya dukaamada hilib xalaalka ah iyo meelaha kale dadku ay isugu yimaadaan ama Minnesota degan tahay dadka ka shaqeeya ama ganacsiga ka samaystay goobaha xanaanada dadka elderly care-ka ama hebelka care ee tirada badan ee day care ha noqoto nursing care ha noqoto magacyada kala duwan ee dadka iyaga business ka dhigtay walow daadooda ay 50 xitaa ka yar tahay 40 ay ka yar tahay they are eligible marka yaa qaadanaya talaalkaasi cid kasta oo qaatay Pfizer cid kasta oo qaatay Moderna cid kasta oo qaatay Johnson & Johnson intuba waxay eligible u yihiin inay booster ka qaataan labada talaale hore Pfizer iyo Moderna waxay qaadanayaan 6 bil kadib ninkii dose 2 qaatay 6 bil muddo hadda laga joogo October baan ku jirnaa 28keeda ninkii qaatay bishii afraad ama shanaad ayaa hadda eligible u ah laakiin se Johnson & Johnson qof kasta oo qaatay 2 bil ka hor oo muddo ay ka soo wareegtay 2 bilood wuxuu eligible u yahay inuu qaato dose kale dadka Johnson & Johnson qaatay waxay qaadan karayaan inay qaataan Johnson koodii oo kale another dose inay qaataan way samayn karayaan ayaga choices kale waxay ku bedelan karaan another dose inay qaataan oo Pfizer ah waxay qaadan karaan another dose oo kale Moderna ah kii ay doonaan ayagu ayuun bay qaadan karayaan taana la socda oo waxa loo yaqaan mix and match ayaa ina bilowday marka insha Allah waxaan jeclahay in intaas ay inagu filnaato eligible individuals may choose which vaccination they receive as a booster dose qofka asagay ku xiran tahay haddii uu markiisii hore qaatay Pfizer iyo Pfizer hadda Moderna wuu qaadan karayaa saddexaadkiisa haddii markii hore uu qaatay Moderna kiisa booster ku qaadan karayaa haddii uu doono Pfizer haddii qofka uu qaatay Johnson hadda wuu ku bedelan karaa kii uu doono ay Moderna ama Pfizer marka yaase laga doonayaa liiska waan kula wadaaga calow maadaama aad ii sheegtay adigu inaadan da'daadu aysan gaarin da'daasi laakiin haddii aad tahay qof ka shaqaysta elderly care meesha duqeyda way businesskaagu tahay ama aad ka agdhowdahay ama aad maxaan ku rahaa si uun aad maxaa la dhihi jiro agdhowdahay day care hebelka care then you will be eligible kana faa'iidayso fursadaasi taasi waa mid su'aasha kale ee soo noqonaysa oo reer Minnesota gaar ahaan ay weydiiyaan insha Allah markaan ka hadlaya ee ah waay markasta cirbada nolol daba taagan yahay taasoo ah su'aal iyana u baahan in dadka iyaga laga qanciyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa rahmatullah